xalqadda shanaad waxay ku bilaabanaysaa iyadoo la adeegsanayo baaritaanka kaaliyaha. Waxaa la ogaaday in qofkii dhintay magaceedu uu ahaa Hayuun. Hal bil ka hor waxaa lagu dilay baarkinka dhulka hoostiisa ee dhismaha dabaqyada. Intaa kadib waxaa dhismaha ku faafay war sheegaya in la arkay ruuxaan dulman. Jaya si taxadar leh ayay u fiirisay kamaradaha ilaalada ammaanka. Waxay ogaatay in dilaaga uu bartilmaameedkii uu bedelay intii uu falka ku jiray. Marka hore wuxuu daba socday gabadha Saangi, balse sabab aan la garanaynin Hayuun ayaa si lama filaan ah ugu laabatay wiishka. Inkasta oo ay ogaatay in ruuxaantu ay xanaaq iyo cuqdad qabto, Jaya waxay go'aansatay inay marka hore hubiso goobta kadibna ay qorshe samayso. Dhanka kale taliyaha Kanga isaguna wuxuu baarayay kiiska, balse maadaama kamaradihii ay jabeen wax badan lama baari karin. Kadib wuxuu aaday dukaanka si uu u dhajiyo ogeysiis baafin ah. Markii taliye Kaaga uu baxayay wuxuu arkay Jaya oo ag maraysa. Jaya waxay tagtay baarkinka waxayna si degdeg ah u aragtay calaamado muujinaya dhaqdhaqaaqa ruuxaanta dulman. Waxay shiday foox si ay ugu yeerto ruuxaanta. Ruuxaantii Hayuun ayaa horteeda ka soo muuqatay. Jaya waxay u sheegtay inay fahamsan tahay ciilkeeda iyo xanaaqeeda, balse ay rajaynayso inaysan mar dambe dhibin Saangi. Markay maqashay hadallada Jaya, ilintii xanaaqa iyo murugada ayaa ka qubatay Hayuun. Kadibna ruuxaantii way baabaday. Jaya way baxday, balse ma ogeyn in laba askari booliis ah ay wax walba indhahooda ay ku arkeen. Markay ku laabatay shirkadda Diibag, Jaya waxay diyaarisay qalabka saare ruuxaan, sidoo kalena waxay la xiriirtay Hansig oo ahaa saaxirkii hore. Labadooduba waxay aadeen baarkinka hoose, halkaas oo hawshii ruuxaan saarista ay si rasmi ah uga bilaabatay. Isla waqtigaas Saangi waxay wacaysay qof kale, markaasay si lama filaan ah u dareentay qof gadaasheeda jooga. Wicitaankii ayaa si kedis ah u go'ay. Waxay dareentay wax aan caadi ahayn, markaasay jeesatay, balse ruuxaantii horey ayay u baabaday. Run ahaantii Jaya horey ayay cusbo ugu wareejisay dhulka si ay u samayso xayndaab sixir ah. Markii fooxii la shiday, ruuxaantii ayaa qiiqa ku soo jiitamay. Hansig markuu arkay, wuxuu si degdeg ah iskaga siibay silsiladii, waxaana isla markiiba jirkiisa gashay Hayuun. Ruuxaantii ayaa madaxa ku dhuftay xayndaabka, isagoo isku dayaya inuu jabiyo xeerka sixirka gacmihiisa. Hayuun waxay doonaysay inay baxsato, balse Jaya fursad ma aysan siinin. Markii Jaya ay ku dhawaatay inay timo-qabadkeeda ay wadnaha kaga dhufato, Hayuun ayaa Jaya riixday. Markay aragtay timo-qabadkii, waxay markiiba soo xusuusatay maalintii uu dilaagu mindida uu ku dhufanayay. Aad ayay u baqday Hayuun. Markay Jaya aragtay arrintaas, wax kale ma samayn karin ee waxay dib u qaadatay timo-qabadkeeda, waxayna isku dayday inay dejiso Hayuun. Markay Hayuun la dejiyey, Jaya waxay isku dayday inay timo-qabadka kaga dhufato laabta Hansig, balse si lama filaan ah taliye Kaanha ayaa ka joojiyey. Wuxuuna u maleeyay in Jaya ay doonayso inay qof disho, sababtoo ah xayndaabkii cusbada ayuu isagu jabiyey. Hansig oo ay ruuxaantu maamulaysay ayaa fursadda ka faa'iidaystay oo way baxsatay. Jaya hadalna kama aysan dhagaysan taliyaha, waxayna si degdeg ah ugu carartay dabagalka Hansig. Dhanka kale Saangi iyaduna waxay gashay xaalad halis ah. Dilaagii ayaa yimid qolkeeda. Saangi way istifaacday waxayna isku dayday inay baxsato. Markay albaabka furtay, si lama filaan ah ayay u aragtay Hayuun oo ordaysa. Hayuun oo isticmaalaysa jirka Hansig waxay si waali ah u garaacday dilaagii. Markii uu ninkaasi qarka u saarnaa inuu dhinto, Jaya ayaa timid. Jaya waxay labadoodii dhulka ku tuurtay si awood badan, waxayna indhaha ka dabooltay Hansig si Hayuun aysan u sii baqin. Kadib Jaya waxay soo saartay timo-qabadkeeda. Isla markaas taliyaha ayaa isaguna soo gaaray. Wuxuu isku dayay inuu ka hor istaago Jaya inay timo-qabadka ku dhufato Hansig, balse waqtigaas Jaya maskax ahaan ma aysan fikiraynin. Waxay timo-qabadkii kaga dhufatay laabta Hansig. Isla waqtigaas taliyaha wuxuu riday xabad, nasiib wanaagse ma ahayn xabad dab ah. Isla markiiba xusuustii Hayuun ayaa gashay maskaxda Jaya. Maalintaas Hayuun waxay raacaysay wiishka hoos u degaya, markaasay aragtay nin weji daboolan oo daba socda Saangi. Ninku si joogto ah ayuu u eegayay Saangi, halka Saangi ay keliya muusig dhageysanaysay, waxna ma aysan dareemin. Hayuun isla markiiba way fahantay inay wax qaldan yihiin. Markii albaabka wiishku uu xirmayay, waxay si degdeg ah u riixday badhanka kor u kaca, waxayna istaagtay inta u dhexaysa Saangi iyo ninka. Ujeedadeedu waxay ahayd inay Saangi la hadasho, balse ninkii ayaa mindi soo bixiyey oo u hanjabay. Saangi waxay maqashay dhaqdhaqaaq gadaasheeda ka imaanaya. Wayna jeesatay, balse waxay u malaysay in labadoodu ay is-yaqaaniin, sidaas darteed waxba kama aysan ka shakinin. Markay Saangi baxday, waxay jeesatay oo waxay aragtay indhaha cabsi ka buuxdo ee Hayuun, balse ilaa albaabka wiishku uu ka xirmayay ma aysan fahmin waxa meesha ka dhacaya. Hayuun marnaba ma filayn in ashaankii ay samaysay uu nolosheeda burburin doono. Ninkii ayaa Hayuun ku soo jiiday baarkinka hoose, halkaas oo ay marar badan iskugu dayday inay baxsato, balse way ku guuldaraysatay. Ugu dambayn ninkii ayaa mindi ku dilay Hayuun. Waxa dadka ka sii xanaajiyey waxay ahayd in markii Saangi laga dhageystay hadalkeeda saldhigga booliiska dhexdiisa, ay sheegtay in Hayuun ay ahayd qof edeb xun oo rag guriga keeni jirtay. Xilligaas Saangi xitaa waxay u malaynaysay in Hayuun iyo ninkaasi ay saaxiibo ahaayeen. Xusuustii halkaas ayay ku dhammaatay. Booliiska ayaa dhammaantood u kaxeeyey saldhigga si su'aalo loo weydiiyo. Ninka dilka geystay magaciisu wuxuu ahaa Taayib. Tan iyo markii uu galay saldhigga, wuxuu si joogto ah ugu qaylinayay isagoo leh, aniga waa lay dulmiyey. Saangi oo dhinac fadhiday ayaa ugu dambayn farta ku fiiqday, iyadoo tiri, isaga ayaa ah dilaaga. Markuu Taayib uu maqlay waxa Saangi ay tiri, isla markiiba wuxuu bilaabay iska difaacid iyo marmarsiyo. Markii booliisku si gaar ah u waraysteen, wuxuu ka been sheegay inuu ahaa saaxiibkeeda, sidaas darteedna uu ogaa furaha gurigeeda meesha uu yaalo. Markii booliisku ay soo xuseen inuu guursaday in kale, wuxuu iska dhigay mid murugaysan, isagoo sheegay inuu qorsheynayay inuu Saangi uu arrintaa kala hadlo maalintaas, balse ay iyadu diiday. Jilitaankiisa xirfadda leh awgiisa, booliisku wax caddayn ah ma aysan heli karin. Dhanka kale taliyaha wuxuu bilaabay inuu waraysto Jaya. Inkastoo uu arkay geedi socodka dacwadda oo dhan, haddana ma rumaysnayn jiritaanka
baaritaanka jinniyada. Jaya si caro leh ayay ugu tiri, haddii aadan rumaysnayn jinniyada maxaad kamaradaha si fiican ugu daawan weyday? Taliyaha wuxuu ku jawaabay in markhaati keliya aysan ku filnayn, caddayn la taaban karo ayaana loo baahan yahay. Markaas Jaya waxay sawirtay mindidii dilka lagu geystay, waxayna u sheegtay in gacanta bidix ee dilaaga ay kala baxday maalintaas. Arrintaas waxay xusuusisay taliyaha maalintii uu cunto soo iibsanayay, markaas oo uu arkay gacanta bidix ee ninka oo dhaawacan. Tani waxay taliyaha gelisay wareer weyn. Si kastaba ha ahaatee, markii dhammaan dadkii ka baxeen saldhigga, Taayib waa la sii daayay. Wuxuu dhex maray dadka isagoo weji jees ah leh, xataa wuxuu u ekaa mid isaga la dulmay. Taliyaha wuxuu eegay sawirka mindida, wuxuuna soo xusuustay hadalkii Jaya. Sidaas darteed wuxuu si degdeg ah u aaday maqaayadda Taayib, isagoo iska dhigay marti horena u galay jikada. Halkaas ayuu ka helay mindi si sax ah ula mid ah tan sawirka ku jirtay, laakiin caddayn maadaama aysan jirin, wuxuu iska dhigay inuusan waxba arkin, wuuna iska baxay. Inkasta oo Jaya ay horay u dejisay ruuxaantii Hayuun, haddana dilaaga Taayib weli lama qabanin. Saangi waxay codsatay inay ku nagaato guriga Jaya. Halkaas ayay ku qiratay runta iyadoo tiri, maalintaas dhab ahaantii waan ogaaday in Hayuun ay khatar ku jirtay, balse cabsi darteed ayaan la cararay. Iyadoo arrintaas ka hadlaysay, iftiinka qolka ayaa bilaabay inuu marna shidmo marna damo, taasoo Saangi aad u cabsi gelisay, waxayna degdeg ugu dhuumatay dhinaca Jaya. Waxay ku celcelisay in ruuxaanta ay mar kale u timid iyada. Inkastoo Jaya ay u sheegtay inay ruuxaanta sii daysay, Saangi weli waxay rumaysnayd in la daba joogo. Markaas Jaya ma sii qarsan karin. Waxay u sheegtay sababta dhabta ah ee dhimashada Hayuun ka dambeeyay. Saangi cabsideedu way sii badatay, balse Jaya waxay ku tiri, qofka badbaadiyey noloshaada magaciisu waa Hayuun, ma aha qof kale ee midaas ogow. Waxay ku adkaysatay in hal magac oo keliya ay xasuusato, waana magaca Hayuun. Jaya waxay sii raacisay in Hayuun ay ahayd jilaa oo 12 sano jiliinka ku jirtay, kana shaqayn jirtay ilaa habeen dambe si ay nolosheeda u maarayso. Maalintii la dilay waxay ahayd maalintii ay heshay doorkeedii koowaad ee hogaamiyaha, balse si ay u badbaadiso Saangi ayay nafteeda u hurtay. Markay runta ogaatay, Saangi aad ayay uga qoomamaysay. Waxay go'aansatay inaysan mar dambe qarsanin xanuunkeeda, waxayna rabtay inay nafteeda u adeegsato si ay u soo jiidato dilaaga si ay ugu aargudo Hayuun, si u yarayso dembigeeda una bilowdo nolol cusub. Jaya markay aragtay geesinimada Saangi way ogolaatay. Habeenkaas Saangi si ula kac ah ayay u agmartay maqaayadda Taayib. Sida la filayay, Taayib isla markiiba wuu arkay, wuxuuna u raacay Saangi ilaa dhismaha ay deganeed. Markii Taayib uu galay qolka hurdada ee Saangi, iyadu waxay iska dhigtay mid cabsi la ildaran oo sariirta ka kacday. Saangi waxay si xeelad leh ugu jiiday Taayib inuu qirto inuu isagu dilay Hayuun, isagoo ku faraxsan inuu u maleeyay in qorshihiisa uu guulaystay. Jaya ayaa si lama filaan ah uga soo muuqatay gadaashiisa, laakiin intii ay isla dagaalayeen, Taayib wuxuu mindida ku gooyay Jaya. Isagoo ka faa'iidaysanaya fursaddaas ayuu cararay. Jaya inkastoo ay dhaawacan tahay, si degdeg ah ayay u daba oroday. Dhanka kale, Ibaan wuxuu xaaladaas ka daawanayay gaariga. Markuu arkay in Jaya ay dhaawacan tahay, isla markiiba wuxuu iska siibay qalabkii kormeerka, wuxuuna u orday si uu u caawiyo. Isla waqtigaas, taliyaha ayaa si kadis ah u soo maray halkaas. Markuu arkay shaqaalaha Jaya oo booliiska wacaya, si dhaqso ah ayuu u fahmay waxa meesha ka socda. Sidaas ayay saddexdooduba si naf hurid ah ugu daba ordeen Taayib. Markii uu ka tallaabay wadada dukaamada, Taayib oo cararaya waxaa ku dhacay gaari xamuulo ah, wuxuuna ku dhintay isla goobtaas. Laakiin isla markiiba Jaya waxay sii daysay neef qabow. Waxaa soo baxday in Taayib uu isu bedelay jinni. Wuxuu si degdeg ah ugu soo orday si uu weeraro Jaya. Isla markiiba Ibaan iyo Jaya waxay isdhaafsadeen baaq indhaha ah. Jaya waxay magaca Taayib ku qortay dhiigeeda, halka Ibaan uu iska bixiyey silsiladii si jinnigii uu ugu galo jirkiisa. Dagaal adag ayaa bilaabmay. Inkasta oo la haysto, Ibaan weli wuxuu lahaa xoogaa awood ah, wuxuuna ku guulaystay inuu ka hor istaago Taayib inuu waxyeeleeyo Jaya. Markay Jaya aragtay arrintaas, si go'aan leh ayay biinka timaha ugu mudday laabta Ibaan. Isla markiiba Taayib wuu baaba'ay. Iyagoo wada shaqeeyey, khilaafkii u dhexeeyey Jaya iyo Ibaan wuu soo dhammaaday. Daqiiqado kadib, taliyaha ayaa yimid, wuxuuna dhammaantood u kaxeeyey saldhigga booliiska si baaritaan loogu sameeyo. Waxay fiidiyowyadii kamaradaha ku wareejiyeen taliyaha, sidaas darteedna wuxuu si buuxda u rumaystay in Jaya aysan ahayn qof caadi ah. Sidaas awgeed, waqti dheer ma uusan haysanin, wuxuuna si degdeg ah u sii daayay labadooda. Ugu dambayn, wax walba si xasilooni ah ayay ku soo noqdeen. Ibaan saaxiibkiisa wuxuu ka caawiyey Saangi inay ka guurto gurigeeda, laakiin Ibaan iyo Jaya waxaa sugaysay dhibaato ka weyn midaas. Habeenkaas, Ibaan markuu ka soo laabtay dukaamaysi, qof ayaa si lama filaan ah u garaacay, wuuna miyir beelay. Markuu soo toosay, wuxuu isku arkay in hawada lagu xiray, halka Jaya oo hortiisa fadhidayna kursi lagu xiray. Qofkii qabtay wuxuu ahaa Hansik oo ka tirsan shirkadda Golden. Ujeedadiisu waxay ahayd inuu ku qasbo Jaya inay iibiso guriga shirkadda Diibak si uu u dumiyo uuna dib u dhiso. Wuxuu heshiiskii iibinta dhulka uu saartay Jaya hortooda, balse Jaya si degdeg ah ayay u tuurtay. Markii Hansik uu arkay in Jaya ay ka madax adag tahay siduu u malaynayay, wuxuu ku amray shaqaalihiisa inay garaacaan Ibaan. Isla waqtigaas, wuxuu ugu hanjabay Jaya in haddii aysan tanaasulin in Ibaan la dilaayo. Laakiin Jaya dan kama lahan waxyaabahaas, sababtoo ah waxay aragtay jinni taagan dhinaca Hansik. Markii uu arkay in Jaya aysan isbedelin, Hansik wuxuu mar kale ku amray shaqaalihiisa inay garaacista sii wadaan. Intii ay dhacaysay, mid ka mid ah shaqaalaha ayaa si kama ah u tuuray silsiladii Ibaan. Markii silsiladii ay dhacday, ruuxaanta dulmaan isla markiiba waxay gashay jirka Ibaan. Markii la haystay, Ibaan wuxuu jebiyey xarigii, wuxuuna si xoog leh ugu booday shaqaalaha Hansik isagoo garaacaya. Hansik ayaa la yaabay midaas, wuxuuna weydiiyey Ibaan qofka uu yahay. Laakiin Ibaan wuxuu ku qaylinayay gurigayga waxay u muuqatay in sir weyn ay ka dhexayso ruuxaanta dulmaan iyo Hansik, waana sir aan la doonayn in la ogaado. Markii Ibaan uu ku sigtay inuu ceejiyo Hansik, Jaya si
degdeg ah ayay silsiladii ugu celisay qoortiisa. Markaas kadib Jaya waxay ogaatay in ruuxaanta dulman ay tahay Somik oo ahaa adeerkii Iban. Sababtoo ah Jaya waxay rabtay inay si degdeg ah u ogaato runta dhimashada hooyadeeda. Waxay arrintaas u sheegtay Iban. Waxay go'aansatay inay baabiiso ruuxaanta Somik si ay u aragto in runta dhimashada hooyadeeda la heli karo. Laakiin markii shaqaalihii Jaya ay maqleen arrintaas, si adag ayay uga hor yimaadeen. Xitaa waxay ku hanjabeen inay shaqada ka tegayaan si ay Jaya ugu qasbaan inay joojiso arrintan. Sidaas darteed Jaya iyo Iban waxay ku qasbanaadeen inay si qarsoodi ah uga wada hadlaan sidii ay runta u heli lahaayeen. Isla waqtigaas shirkadda Deepak waxaa yimid marti cusub. Ninku wuxuu sheegay inuu yahay milkiilaha warshad, wuxuuna sheegay in 2 maalmood ka hor uu ku arkay ruuxaan qaboojiyaha dhexdiisa. Markii ay shaqadaas aqbaleen, Jaya iyo Iban waxay tageen qolka qaboojiyaha si ay u soo hubiyaan. Laakiin wax calaamad ruuxaan ah ma asan helin. Iban isagoo la yaaban sababta qaboojiyaha u qabow yahay iyadoo koronto aysan jirin, ayaa albaabka gadaashooda si lama filaan ah u xirmay. Kadibna hawo aad u qabow ayaa gudaha ku soo gashay. Waxay soo baxday in qof uu bannaanka ka shiday qalabka, isla markaana uu dejiyey heerkulka. Waxaa caddaatay in qof uu doonayay inay ku barafoobaan halkaas. Dhanka kale, shaqaalihii Jaya waxay ballan la samaysay Hansik. Waxay u sheegtay inay taqaano sirta dilkii Somik, waxayna ka codsatay inuu diido in Jaya ay samayso ruuxaan saarista. Markaas kadib labadooduba way kala tageen. Isla markiiba shaqaalihii Jaya waxaa ku dhacay alwaax culus oo wiish ka soo dhacday. Dhanka kale, Jaya iyo Iban ayaa ku xayirmay qaboojiyaha, mana garanayn waxa ay sameeyaan. Markaas ayaa nalalkii bilaabeen inay gariiraan, kadibna way dameen. Jaya waxay sii daysay neef qabow, isla markiiba albaabkii qaboojiyaha ayaa si iskiis ah u furmay. Waxay aad ula yaabtay markii ay aragtay in qofkii albaabka furay uu ahaa hooyadeeda. Jaya ma fahmin sida ruuxaanta hooyadeeda oo ku xanibnayd meesha ay ku dhimatay ay halkaas ku imaan karto. Iyadoo awood yar ku soo hartay, Jaya waxay isku soo jiiday dhanka hooyadeeda. Waqtigaas Jaya maskaxdeeda waxaa ku jiray su'aalo badan. Markii muuqaalka hooyadeeda si tartiib ah u soo muuqday, Jaya awood dambe ma aysan yeelan, waxayna gashay xaalad suuxdin ah. Markii ay soo toostay, Jaya iyo Iban waxaa horay loogu geeyey isbitaalka. Waxaa soo baxday in Iban saaxiibkiisa uu arkay inay waqti dheer aysan soo noqonin. Markaas ayuu u tagay si uu u soo hubiyo. Halkaas ayuu ku arkay labadoodii oo miyir beelay kuna jira qaboojiyaha. Markii Jaya ay weydiisay xaaladda shaqaalahoodii, Jaan hadal ma uusan oranin. Dhammaantooda waxay aadeen qolka gargaarka degdega ah. Nasiib wanaag, dhakhtarku wuxuu sheegay in shaqaalihii aysan khatar ku jirin, isla markaana ay si dhaqso ah u soo miyirsan doonto. Waxaa la ogaaday in shaqaalihii uu horay u saadaalisay khatarta, sidaas darteed ay booliiska horay u wacday. Markii booliisku ay yimaadeen, waxay heleen iyada oo xaalad liidata ku jirta. Markay isku xireen dhammaan dhacdooyinkaas, waxay u maleeyeen in wax walba ay ahaayeen qorshaha Hansik. Markii Jaya ay guriga ku sii jeeday iyadoo la socota Iban, waxay mar kale ka fikirtay hooyadeeda. Markan nasiib ayay u aragtay in hooyadeeda waqtigeeda ay ka soo gaartay, taasoo keentay inay ka badbaado. Laakiin weli ma fahmin sida ay taasi u suurtowday. Maadaama ruuxaanta Mijin ay ku xanibnayd shirkadda Deepak, sidee bay uga soo muuqan kartaa qaboojiyaha dhexdiisa? Jaya isla markiiba waxay u tagtay hooyadeeda si ay wax u weydiiso, laakiin nasiib darro, hooyadeeda ma hadli karin. Jaya waxay si joogto ah maskaxda ugu celcelisay wixii dhacay, ilaa ay ka garatay xaqiiqda waana in hooyadeeda aysan ahayn ruuxaan ku xiran guriga, balse waxay ahayd ruuxaan ku xiran Jaya lafteeda. Laakiin badanaa ruuxaanti qof ku xirma waa mid xanibaad iyo nacayb uu ka buuxo. Markaas Jaya waxay isweydiisay iyadoo leh, ma suurtagal baa in hooyadeyda aysan doonayn inay baxdo? Fikirkaas ayaa Jaya ka dhigay mid aad u shakisan, wuxuuna sii xoojiyey shakigeeda ku saabsan sababta dhabta ah ee dhimashada hooyadeeda ka dambaysa. Dhanka kale, markii Hansik uu ogaaday in Jaya iyo kuwa kale dhammaantooda ay badbaadeen, aad ayuu u carooday. Wuxuu isla markiiba ku amray shaqaalihiisa inay si degdeg ah u raadiyaan shaqaalihii Jaya, sababtoo ah warqadda damaanada ay hayso ayaa caddayn u noqon kartay in isaga uu ahaa maskaxdii ka dambaysay dabkii shirkadda ka kacay. Isla waqtigaas Jaya iyaduna waxay tagtay meesha Hansik uu joogo. Waxay si toos ah ula hadashay ninkii, waxayna soo saartay heshiiska iibka dhulka, iyadoo ogolaatay inay iibiso shirkadda Deepak oo ay ka guurto. Laakiin waxay ku xirtay hal shuruud oo ah in marka hore la sameeyo ruuxaan saarid. Hansik asal ahaan ma rumaysnayn jinni iyo ruuxaan, laakiin hadda kama uusan hor imaan karin Jaya. Wuxuu rabay inuu arko waxa ay damacsan tahay, isla markaana fursad uu u helo inuu iyaga ka takhaluso. Jaya waxay u sheegtay in Hansik uu aqbalay ruuxaan saarida. Markaas Iban si degdeg ah ayuu uga baryay Jaya inay u ogolaato inuu iyada la shaqeeyo, sababtoo ah wuxuu rabay inuu indhihiisa ku arko runta dhimashada adeerkiisa. Isla waqtigaas Jaya waxay heshay wicitaan ka yimid isbitaalka, shaqaalihii wuu soo toosay. Jaya si degdeg ah ayay isbitaalka ugu carartay. Jaya aad ayay u faraxday markay aragtay in shaqaalihii uu soo toosay, ilaa ay ilmo ka soo qubatay. Shaqaalihii waxay u sheegtay Jaya in ay warqadii ballanqaadka u adeegsatay inay ugu hanjabto Hansik. Jaya marnaba ma canaananin, waxay kaliya ku tiri, hawelwelin ugu horeyn adiga soo bogso, inta kale anigaa la wareegaya. Habeen kale ayaa la gaaray. Jaya iyo Iban waxay diyaariyeen wax walba, waxayna aadeen goob dhismo cidlo ah si ay ula kulmaan Hansik. Ujeedadoodu waxay ahayd inay halkaas ku sameeyaan ruuxaan saarista. Markii Iban uu dhammeeyey samaynta xayndaabka ruuxaanta ah, Hansik iyo shaqaalihiisii way yimaadeen. Hakson wuxuu ka baqayay in Iban uu mar kale wax yeeleeyo, markaas ayuu dalbaday in la xiro. Sidaas darteed, Iban waxaa lagu xiray tiir, silsilado bir ah waa lagu adkeeyey. Markii Iban laga saaray silsiladii qoorta ugu jirtay, ruuxaanta Somik isla markiiba way soo baxday. Laakiin intii Jaya ay doonaysay inay qaado timo qabsigeedii, shaqaalihii Hansik ayaa ku tuuray dhulka oo ka qabtay. Kadib Hansik si tartiib ah ayuu ugu soo dhawaaday Iban oo uu qaylinayay. Wuxuu rabay inuu ogaado inta uu Iban ka og yahay dembiyadii sanadkaas dhacay. Laakiin ruuxaantii Somik waxay kaliya si caro leh
leh u sheegay runta isaga oo aan keenin wax caddayn ah. Markuu arkay arrintaas, Hansim wuxuu u arkay in Ivan uusan khatar ku ahayn noloshiisa, wuxuuna ka darbaaxay wejigiisa wuxuuna ku yidhi, ha isku dayin inaad sidaan igu qiyaanto. Markii la sheegay magaca Ivan, ruuxaantii Somik si lama filaan ah ayay u waalatay, waxayna si xoog ah ula dagaashay silsiladihii, wuxuuna dhulka ku tuuray Hansik, kadibna si daran ayuu u ceejiyey. Xaaladdu waxay noqotay mid qalalaasa ah. Shaqaalihii ayaa u soo orday si uu Ivan u weeraro una badbaadiyo Hansik, laakiin waqtigaas ruuxaantii Somik aad bay u xanaaqday. Wuxuu si joogto ah u bursanaanyay Hansik si uu u gaaro Hansik oo baxsanayay. Ivan wuxuu ka booday meel sare. Markii Ivan uu dhacay, hogaamiyaha booliiska ayaa maqlay codkaas. Isaga iyo ciidankiisii si degdeg ah ayay baabuurka uga soo degeen si ay u hubiyaan waxa meesha ka dhacay. Waxaa markaas soo baxday in Jaya horey ula ballansanayd taliyaha kulan qarsoodi ah. Jaya waxay hore u sii filaysay in Hansik uusan si dhab ah ula shaqayn doonin ruuxaan saarista. Xitaa waxay ogeyd in haddii loo baahdo, Hansik uu dili karo iyada iyo Ivan. Muuqaalka haddaad ka heshay like saar haddii ay tahay markii ugu horeysay aad soo booqato janaalka subscribe dheh gambaleelka furo si aad u hesho muuqaaladayda xiga. Mahadsanid.